ganacsatadii iyo weliba dadkii halkaasi wax ku iibin jiray isla markaana uu ahaa suuqani ka ugu weyn ee looga soo adeeg doonto guud ahaanba caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa sida indhihiina aad ku aragtaanna waxaa muuqanaysa baaxadda uu dabku leeyahay iyo weliba sida qiiqa iyo holaca ka baxaya suuqa dabkaasi uu yahay mid wada saameeyay guud ahaanba suuqa weyn ee caasimadda Hargeysa weli waxa ay isku dayayaan ciidamada dabdamiska Soomaaliland sidii ay u xalin lahaayeen amaba ay u qabatimi lahaayeen amaba ay u joojin lahaayeen dabkan xoogan ee ka kacay suuqa ugu weynaa guud ahaanba Soomaaliland daawadayaal sadarkii saamamii waxaa arkaysaa waxa weeye waa dab aad u xoogan oo hadda dhibaato xoogan ku haya caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa sida arkaysaana dabku waa mid intiisa badan haatan si weyn ugu fidaya suuqa weyn ee Waaheenkaasi oo ilaa hadda xal loo leeyahay shacabka caasimadda Hargeysa waxay ku noqotay iyadoo maanta guud ahaanba deegaanada Soomaalida iyo Soomaaliland si weyn looga hadalhayay bilashada bisha Ramadaan oo weliba wararka Soomaaliland markii dambe ay sheegtay in Soomaaliland laga soo mahay maalinta bariya ay dadku isku diyaarinayeen bishaasi barakaysan ee la filayo bari ama maanta in Soomaaliland iyo guud ahaanba caalamka laga soo midoono haddana dhibaatada ku dhacday shacabka Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa waxay noqotay mid si weyn maanta iyo caawa u saameysay guud ahaanba shacabka dhibooda waa dab aad u xoogan waxaana suuqan u ahaa suuqa kaliya ee soo adeeg doontaan shacabka magaalada caasimadda Hargeysa waana suuqa ugu weyn guud ahaanba Soomaaliland suuqyada ka jira waa suuqa Waaheen oo dabku ka bilowday waxaana halkan ku ganacsada hooyooyin dayar ah oo iyagu ka ganacsada hilibka iyo alaabaha kala duwan ee dadku ay u baahan yihiin xilliyada kala duwan sidoo kale suuqa waxa uu leeyahay qaybaha dharka ee kala duwan waana suuq inta badan ay ku tiirsan tahay nolosha shacabka Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxaana dabkan uu noqday mid qiiqiisa iyo holaciisa laga arki karo qaybaha kala duwan ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa sida arkaysaana hadda anigu waxaan dakada kaga taaganahay dhismo dheer oo ku yaala meel aad uga fog suuqa weyn oo hadda uu dabku ka socdo hase ahaatee waxaad si sahlan u arki karaysaa in halkaasi dabka ka soconaya iyo weliba holaca iyo qiiqa aniga laftarkaygu halkan aan taaganahay waxaa dul maraya waa daruuro qiiq ah oo iyagu mataqaanaa halkaasi holaca ka soo baxaya uu sababay sida arkayna xaggayga hoose haddii aad aragtaan waxaad arkaysaa shacabkii oo kusii qulqulaya suuqa weyn ee caasimadda Hargeysa kuwaasi oo doonaya inay gurmad ka fidiyaan dhibaatada caawa ka dhacaysa magaalada Hargeysa shacabka gaadiidka kala duwan ee caasimadda waa kuwo aad dareemayso in dhiila ay ka taagan tahay magaalada Hargeysa wararka aan helayna waxay muujinayaan in dad ay dhibaato ka soo gaadhay waxyeello aad u xoogan dad dhaawac ah ayaa la soo sheegayaa in cisbitaalka weyn ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa la dhigay kuwaasi oo lagu dabiibayo xaaladooda balse dhibaatada ugu weyn waxay soo gaadhaysaa sida ay sheegayaan wararka hordhacan ka helana ciidamada dabdamisku dadka ganacsatada ah oo iyaga halkaasi ku shufmeelay guryahoodii iyo weliba dukaamadii ay ku lahaayeen suuqa weyn ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa oo ah suuqa Waaheen dabcan magaalada Hargeysa waxay leedahay suuqyo kala duwan balse suuqani waa suuqa ugu weyn inta ilaa hadda la ogyahay waana suuqa ugu weyn guud ahaanba Soomaaliland daawadayaal waxaad arkaysaan in holac aad u badan uu ka dhacayo suuqa weyn ee magaalada Hargeysa ee Waaheen waxaana dabcan muuqanaysa dhibaatada iyo baaxadda uu leeyahay dabkan caawa ee ka socda suuqa weyn ee magaalada Hargeysa weli ciidamada dabdamiska Soomaaliland waxay sheegayaan in ay la tacaalayaan sidii xaaladan aad u halista badan leh ay wax uga qaban lahaayeen balse nasiib darro waxaa muuqanaysa in weli aan xakamayn karin dabkan sida xawliga u faafaya mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn Soomaaliland balse nasiib darro waxaa muuqanaysa in aad ay u adag tahay xaaladda dadka halkaasi ku sugan waa dareemi kartaan qof aad u danyar ah suuqa nolol ka soo raadsaday marka uu la kulmo xaaladan oo kale isagoo arkaya uu gubanayo dukaankii yaraa ee uu ku lahaa amaba suuqii yaraa wixii uu ku ganacsan jiray oo gubanaya subax walba halkan waxaa u soo shaqo tegi jiray boqolaal kumanaan hooyooyin danyar ah iyo aabbayaal danyara kuwaasi oo noloshooda kala soo bixi jiray oo ku biili jiray boqolaal ubad ah balse nasiib darro caawa waxay u tahay maalin adag
guud ahaanba shacabka caasimadda Hargeysa. وشعبكي عاصمة هرقيسة وحافظه ذيك عربية إسلام كانوا عربية دنكا جبالة كجرتو وعلى أركز شعب تربضا وأردية كواسي أو بقورية أما بصعدة حق جبالة كجرتو السوق وين واحد هالكاسي وآد وبدأ السوق واحد مسجد مدن يكون يلان قول كلها جستو مساجد واوين وكمل مساجد مالها هرقيسة واوين كواسي وحاول قارقودنا صلاة تراويحها نجت كذي أما نجت كذي بس جبالة سيدا موقتا ومن وقت استدرك اللوسيسي ومن ذلك وقت استعيكو إلابين يو أردمان ذلك يسكت يعني أي قرن يقرقار أي لكان سوق وين أواحين سيدا أركي كرتان عركة وحا اسكو قريي قيقة يوليبا أوردا أوليه هاي طبكا آد كوحو قلي كاس أو قودهان بمغالة العاصمة هرقيسة لغا درامي إلا حتى ولي عيدامة النفس الصومالي الآن سنعكي كم أوان روحا ضلي وحي نوع حقيقين إني بعطدا ودبكا سيكيسين لأي تاي مid saacad ba saacada ka dambaysa sikiba sikku ka dambeeyo mirku ka dambeeyo ay sii kordhiso iyadoo weli ilaa hadda aan lagu guulaysan si aragtaanba in xal waara laga gaaro dabkan sida xoogan u faafaya waxaa noqonaya dabkii ugu xooganaa ee suuqani ka kaca abi taariikhda guud ahaanba caasimadda Hargeysa waana dab run ahaantiisa arkaysaanba dhibaatadiisu ay tahay mid laga wada dareemayo guud ahaanba caasimadda Somaliland ee Hargeysa sida muuqata dabku waa mid mar walba ka sii daraya sida muuqata dabku waa mid mar walba marka ka sii dambaysa ka sii daraya dhibaatada uu dabku gaarsiinaya dadka danyarta ah dadka ganacsatada ah dadkii halkaasi hantidooda ay taalayna waa mid aad u badan sidaad arkaysaa weli shacabka caasimadda Hargeysa ee degan xaafadaha kala duwan ee magaaladu waa kuwo ku sii qulqulaya suuqa waad arki kartaan shacabkii oo guryahoodii ka cararaya amaba xaafadahoodii una gurmanaya dadka ay dhibaatadu gaadhay